aad ayaa looga yaqaanay magaalooyin kala duwan waxa uu ahaa geesi shacabka ka soo jeeda magaalada Shiraz ay ku dhaadan jireen oo ay u arkayeen hogaamiyaasha marla aragga ah ee deegaankooda ka soo baxay laakiin waxa uu noqday laba wajiile nin u shaqeynaya Israa'iil iyo sirdoonka wadanka Ingiriiska nin inta badan wadankiisii hankii ay kala haayeen dhulka dhigay waxa ay dadka arkayeen waxaana hayna ka shaqeynayay ninkii loo waday kursiga madaxweynaha ee rajada badan laga lahaa waxa la hoos istaajiyay xariga daldalaada isagoo loo arkayay nin wadankiisa qiyaanay oo aan macno badan ugu fadhin laakiin sirdoonadii uu la shaqeynaya ayaan ilaa iyo hadda ka hadlin kaalintii uu ku lahaa fahamkii laga helay goobaha uu ku yaala xarumaha nuclearka ee dalka Iran xarunta Fordo Natanzi iyo Isfahan waa ninka u farmuuqay reer galbeedka iyo Israa'iil hase ahaatee intaasi oo dhan waxaa ka horeeya sida lagu ogaaday ninkaasi kaalinta ay ku lahaayeen sirdoonka dalka Ruushka ee FSB la yiraahdo iyo waliba halka sheekooyinka oo dhan ay ka bilaabeen kuna dhamaadeen Ali Rida Akbari ninka aan ka sheekaynayo ayaan guud ahaanba ku faaqidi doonaa muuqaalkan nin maanta dhibaatadii uu geystay jamhuuriyadda islaamiga ah ee Iran ilaa iyo hadda laga soo kaban laayahay iyo waliba taariikhda ninkaasi iyo sida shacabka jamhuuriyadda islaamiga ee Iran ay u arkaan barnaamijkan ayaan ku faaqidi doonaa saaxiibayaal ku soo biira YouTube-keena oo subscribe saara waxaan ahay Cabdi Casiis Barrow jimca wanaagsan ma ogtahay in dhakhtar Shaafici Aadan Dirir loo aqoonsaday dhakhtarka ugu wanaagsan qaliimada dalkeena Soomaaliya ahna dhakhtarkii ugu horeeyay ee wax ku qala qalabka casriga ah ee laparoscopiga ama laserka dhakhtarka oo daboolay baahiya caafimaad ee loo adeeg jiray wadamada dibadda waxa uu filin doonaa dhammaan qalinka guud iyo kuwa casriga ah ee laserka maalin waliba waxa uu heega kugu yahay isbitaalka Shaafici ee magaalada Muqdisho ee hore u gaar ama wixii faafahinta dheeri kala xiriir lambarada shaashada kaaga muuqanaya sheekadu waxay ka bilaabanaysaa diyaarad ka duulaysa garoonka magaalada London ee Heathrow isla markaana ku sii jeeda garoonka Ben Gurion ee magaalada Tel Aviv dhulka la haysto ee Falastiiniyiinta diyaaradan waxa saaran dad aad u fara badan oo rakaab ah qaarkood waxay u socdaan arrimo ganacsi kuwa kalena waxay booqanayaan qoysaskooda oo halkaas ku yaala kuwa dalxiisayaal doonaya inay soo ogaadaan taariikhda dhulka muranka badan uu ka taagan yahay ee maalin walba lagu dagaalamo hase ahaatee diyaaradan waxaa saaran sargaal ka tirsan MI6 ka dalka Mareykanka waxa uu wataa boorso weyn ujeedadiisuna waxay tahay in uu xog lama filaan ku noqon doonta Israa'iil uu faraha ka saari doono waa ogaashiyaha xogta Ali Rida Akbari ninka rajada weyn ay ka lahayd dowladda Iran oo markaan noqonaya sirdoon xogtii wadankaasi lagu aamini lahaa shisheeyaha ka iibinaya sheekada laba wajiile qarsoon ayaa halkan saaran markii uu sargaalka MI6 ka dago dalkaasi ama dhulka Falastiiniyiinta laga haysto gaar ahaan garoonka Ben Gurion ee Tel Aviv waxa uu la kulmayaa saraakiil sarsare oo garoonka ku sugaysa oo ka tirsan hay'adda Moosaadka Israa'iil waxay isweydaarsanayaan salaan kadibna waxay aadayaan goob loo diyaariyo sargaalkaasi sare oo ka tirsan MI6 sirdoonka amuraha dibadda ee dalka Britain markii uu halkaasi tago waxa uu la wadaagayaa in dowladda Ingiriisku ay nin aad u heer sareeyo oo Iiraani ah ay la leedahay xiriir fiican isla markaana la shaqaaleysiiyay ninkan waxa uu guud ahaan bahayaa xog in badan reer galbeedku ay raadinayeen oo ku saabsan jamhuuriyadda xiran ee islaamiga ah ee Iran markan sargaalkan boorsooyinkiisa waxa ku jira isla markaana Moosaad lagu wareejin doono xogta xarunta Fordo oo ah tan ugu weyn ee dhulka hoostiisa ku jirta ee lagu hodmiyay uraniumka isla markaana la doonayo in lagu farsameeyo halkaasi hubka nuclearka ee dowladda Iran ay raadinayso taasi oo kaliya maaha waxa uu sidoo kale bixiyay xoga ay ka mid yihiin Isfahan sheekadu markan waxa gacanta lagu dhigay xog la yaab leh oo aad u ballaaran Ali Rida Akbari waxa lagu yaqaanay inuu ahaa nin wadaada
sargaala dagaalyahana afyaqaana wadani ah isla markaana aad ugu xiran madaxda sare ee kacaanka Iiraan. waxa uu dhashay 1960kii 21kii Oktoobar sida taariikhdiisa ku xusan, waxaana uu adduunka markuu imaanaya uu ka soo galay gudaha ama uu ku dhashaan ilaahda Shiraz, magaalo si weyn loogu yaqaano guud ahaanba taariikhda iyo waliba dhaqanka wanaagsan ee dadka Iiraaniyiintu ay leeyihiin. waxa uu soo noqday wasiir ku-xigeenkii wasaaradda difaaca Jamhuuriyadda Islaamiga Iiraan 1998 ilaa 2003, ama mararka qaar waxa la sheegaa in xukunkiisa xitaa uu xukunka ku dhex jira uu shaqeynayay ilaa 2005. waxa uu ahaa nin si weyn loogu yaqaanay arrimaha hadalka iyo waliba ku dhiiranaanta sida Iiraan ay u noqon karayso jamhuuriyad isku filan oo aan reer galbeedka u hogan. sida daraadeed waxa uu ahaa nin hadalka uu jeediyay laabta dadka si toos ah u wajahi jireen. ciidamada ayuu aad u gubaamin jiray, waxa uu sheegay jiray dal jacayl iyo in la iska ilaaliyo laba wajiileynta iyo la shaqeynta kooxaha wadankooda halista ku ah, si gaarana reer galbeedka. isagoo ah wasiir ku-xigeenka arrimaha gaashaandhigga ayaa waxa uu gaaray safaaradda Britain ay ku leedahay magaalada Dahraan. halkan waa meesha dabinka loogu dhigay ee laga shaqaaleysiiyay. waxa loo soo bandhigay in haddii uu xilka ama xogaha loo dirayo uu keeno ay hubanti tahay in reer galbeedka ay ka dhigi doonaan madaxweynaha wadanka Jamhuuriyadda Islaamiga Iiraan. waxa uu la shaqeynayay oo waliba xogaha ugu fiican siinayay madaxda ugu sareysa wadankaasi. albaabka Qamani laga macalin jirin. sidoo kale la taliyihiisa arrimaha ammaankana waxa uu ahaa nin ay isku furan yihiin oo uu la shaqeynayay. ninkan waxa uu sidoo kale ka mid ahaa geesiyaashii dagaalka ku suntanaa iyo halyeeyadii marle aragga ahaa ee wadankaasi soo maray. waxa uu aad u dhaliili jiray Israa'iil iyo waliba qorshooyinka reer galbeedka oo uu arkayay amaba uu dadka u sheegay inay yihiin kuwa wadankiisa ay ku dhagrayaan. dhalinyarada ayuu bari jiray dal jacayl. aan dib kuugu celiyo markan iyo sidoo kale Tel Aviv sheekadii ka socotay. markii sargaalkaasi uu Tel Aviv gaaray ka tirsanaa MI6ka dalka Mareykanka, waxa arintaasi kadib bilaabatay in xogo fara badan la iswadaarsado, isla markaana Britain iyo Israel ay si dhow uga wada shaqeeyaan ogaashiyaha xarumaha nuclearka ee Fordo, Isfahan iyo Natanzi. kadibna ninkan waxaa loo soo diray jiray xog, iyadoo markii dambe loo sameeyay maalgelin iyo dhaqaale fara badan, taasoo ugu dambeyntii dhalisay in dhaqaalihiisa iyo ganacsigiisa uu geeyo wadamada Yurub xilligaasi uu Ingiriiska ka mid ahaa. hase ahaatee markii uu xog rabay in uu gudbiyo waxa uu aadin jiray London, halkaas ayuuna geyn jiray xogaha muhiimka ah ee looga baahdo. arrinta ninkan iyo waliba dhaqdhaqaaqyadiisa waxaa si weyn indhaha ugu hayay sirdoonka wadanka Ruushka ee FSB la yiraahdo. xog kasta iyo tallaabo kasta uu qaado ayaa la raad gudayay. ninkan isaga wuxuu isku arkaya haliyay dadku aanay ka shakin karin, laakiin sirdoonku waxa ay ka shakiyaan qofka la aaminsan yahaba in aan laga shakin karin. waxa la soo helay raadadkii galay Tel Aviv, xogay ay heleen MI6ka, sababaha loo maalgeliyay ee dhaqaalihiisa uu ugu aaday wadamada reer galbeedka. ugu dambeyntii Ali Shamdani ayaa u yeeray oo ahaa madaxii amniga guddiga ilaalada kacaanka ee dalka Iiraan. waxaana loo sheegay wadanka inuu u baahan yahay. dalka ayuu ku soo laabtay, waxaana la qabtay sanadkii 2020 iyadoo uu ka soo muuqday telefishinka qaranka dalka isagoo xiran suud, si wanaagsanna timaha loogu soo jiray, shacni badanna uu ka muuqanayo. waxa uu ka hor qaranayaa muuqaalo 9 xalqadood oo la baahiyay inuu yahay nin sirdoon ah oo la shaqeynaya wadamada reer galbeedka, xogtiisana ay gaaraysa Israa'iil. meelaha uu xogta ka gudbay waxaa ka mid ah Fordo, xaruntii Mareykanka iyo Israa'iil ay dhawaan garaaceen, Natanzi iyo Isfahan oo ka mid ah meelaha Mareykanka iyo Israa'iil ay sheegeen in ay si weyn u garaaceen maalmihii la soo dhaafay ee dagaalku ay socdeen. hase ahaatee sanadkii 2023 ayaa la hoos istaajiyay
xariga daldalaada halkaasoo nafta lagu dhaafiyey. idaacadda BBC Persia ayaa baahisay cod inta aan la dilin ka hor uu la wadaagay. waxa uu leeyahay anigu maahi jaasuus iyo sirdoon midna ee waxaan ahay wadani. wax kasta oo aan telefishinka ka sheegay waa la igaraacay, waa la ijirdilay, waa la isuurad xumeeyey ilaa iyo ugu dambeyntii nafta la idhaafin doono. haddaba su'aalaha iman doona waxay tahay cali rida akbari ninkii ku sigtay Khamenei in uu ka dhigo madaxweynaha wadankiisa, dadaalkiisa, firfircoonidiisa, shaqooyinkiisa, daljacaylka uu muujinayay, dagaaladii uu ka soo qayb galay iyo janankii qiimaha lahaa, maxaa ka dhigay in uu noqdo laba wajiile? ma dhaba warkii uu ka sheegay idaacadda BBC Persia uu ku leeyahay anigu maahi sirdoon ee waa la igaraacay? maxay ilaa iyo hadda sirdoonka Ingiriiska iyo Israel cali rida akbari kaalintii uu la qaatay ay u soo saari laayeen, isla markaana ay u qiri laayeen arrintii uu la shaqeeyay? dhinacooda ma waxa uu ka yahay halyaay? su'aalahan wali jawaab looma hayo, lamana oga goorta jawaab laga keeni doono. haddii cid ay hayso jawaab sax ah inay bixisana waa mid kooban oo iyada oo kaliya wali og. haddii Iran aysan furi lahayn albaabadan cidna ma ogaateen waxa gacanteeda ku jira. waa halkii Soomaalida ay ka lahayd godan yahay imaadan goyseen haddii uusan gobolkay kugu jirin. soo dhawaada, aad baad u mahadsantiin.